السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا يقصد هذا البرنامج كأنكم مع عديرة 1.5. ما أنتوا حنيسوا بندقينا وحاول فرحة وجهي كموقت. فرحة وجهي كموقتها وحكم موقتها هوية كستا ويل كستا نوين كستا أضي كستا وسوماليا يقدون كمال على ما يشوفوا فرحة داس وجهي كموقتها. ما أنت برنامج كأنه وحوك هذا يا دتك إدلك إدنتا أما دنتا إدلك إدتك. tan kuwaad waxaa waaye dantiini waxaa waaye inaan Soomaaliya maxamed meel alla meesha joogtiin inaa hal noqotiin oo qabiil iyo qashin iyo qurun dhan niida laga saaro wax alla wixii dheen cafis iyo musaamax. maanta waxaa waaye maalintii koowaad dhalinyarada Soomaalida dantoodii la fiiriyay oo la arkay iyakana ay ku dadaaleen inay soo celiyaan taariikhdoodii hore. tan labaad waxaa waaye dalka Soomaaliya waxaa waaye dal oo taariikhdiisii ila xasuuqi la baabi'iyay loogu talagalay ay fahmi waayeen generation badan naga horeeyeen ay fahmi waayeen dagaalka lagu waday. dalka Soomaaliya waxaa waaye dalka kaliya oo awooda inay weligeedii baahi ka dhicin. dalka Soomaaliya iyo badeedii iyo cirkeedii waxay leedahay faa'iido istiraatiiji oo adduunka dhan qabin ee Soomaaliya kaliya Ilaahay mahad ugu dhigay. laakiin dalkii Soomaaliya oo intaas dhan faa'iido lahaay ma helay dadka oo badbaadsan karaan. dadka Soomaaliya waxa waaye dadka kaliya 26 sano isdhameynayay waxay isku dhameynayaan ilaa hadeertan fahansaneen. marka hadda waxaan rabay inaan ii soo bandhiga arin Soomaaliya taalay ilaa haddana taalo saa anaka ugu hortagi lahayn arintaasna ay tahayna videogan. nuxurku waxa uu ahaa doorashada Soomaaliya iyo sida dawladaha danta kale ay u arkaan. marka waa aragteen wadan kasta Soomaaliya oo xuduud leh ama yuulaha lahaanin danuu ka leeyahay. maxaa dhacay Soomaaliya jidad badan ee leedahay iyo barwaaqa oo weligeedii adduunka lahayn ee leedahay. laakiin shacabkiini ma fahansaneen intaas oo sano. maanta alxamdulillah way fahmeen. wadan kasta waxaa way dantiisu ka fikiraa laana dawlad hadii Soomaaliya ka dhisanta oo Soomaaliya hal noqoto waxaa way dantiisi ku baabi'aysa qofkii cadawgii ahaa. waxaa soo baxaya batroolka Soomaaliya soo baxaya. waxaa soo bixaysa dhaqaalaha xoolaha Soomaaliya banaanka aadaya. beerihii iyo qudaartii Soomaaliya banaanka aadaysa. waxaa imaanaya badda Soomaaliya waxaa ku jirta kalluunka oo la dhahayo tuna fish waa the best in the world. badda Soomaaliya laga helaa. intaasoo dawladana way xaabsadaan badda Soomaaliya. qof ka hadla iyo qof sheega ma arkin. dadna waxay ku dagaaltamayaan inay dawladada oo shisheeye inay u saxiixaan dhul ama heshiis adi aqoonin waxa ku qornay. waa saxiix bas warqada lagu keenaa waxa leedahay aniga waa ogolahay. markaas saxiixleed hadhow shuruudidiisi asaa qornaa ninka cadawga ahaa. dawladda Imaaraadka waxay ku dadaalaysaa musharaxiinta daarood si farmaajo looga hor istaago labada xil ee ugu sareysa dalka. haddii xukunka uu qabto way adkaanaysaa in Imaaraadka Carabtu gacan ku yeeshaan maamulka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. dawladda Imaaraadka ku soo hortay marka. dawladda Imaaraadka waxa waaye dawlad oo danaheedii gooni u leh. danaha koowaad ee Soomaaliya iyada ay ka leedahay waxa kamid inay dekad Soomaaliya ee ismin. Soomaaliya dekadooyinka dhan inay ijaar iyada u ahaadaan say ku sameeyay dawladaha qaarkood adduunka. maxaa dhacay wadada Soomaaliya ee ku taala waa wadada istiraatiiji adduunka baa mushtarkiisi mara. haddii Soomaaliya dekadooyinkeeda mid kamid waa shuruudada koowaad iyada ay soo jeedo. shuruudo kalena way sii leedahay inay Soomaaliya saas ahaato. tan koowaad waxa waaye inay badda Soomaaliya inay dekad lahaanin. haddii dekad lahaato maslaxada dekadeedii Dubai ku baabi'aysa. taasna waxa waaye shardi mid kamid shuruudadeeda ay soo horjeedo Soomaaliya dawlad ka dhisanta. tan waa mid bas. inta kale Allahu ya'lam. haddaan nii sheega ma aaminaysiin laakiin taariikhda way sheegi doontaa. Imaaraadka wuxuu gaarsiin heer hadeertan heshiis degdeg inuu ku sameeyo Somaliland. maxaa dhacay heshiiskaas isaga oo raadinaya waxa way warqad cad ku qoran inaan la heshiino aan rabnaa Imaaraadka. weligiin ma aragtay warqad inaan la heshiino. maxaa la heshiinayna ma naqaan waxa ku heshiinayna. dadkii laga dhaadhicinaya Somaliland joogan inay fahmayaan barlamaankooda.
maxaa dhacay waxay ka cabsanayaan virus la dhaxay maaragtay farmaajo wadankii socdo viruskaasna waxaa laga yaabaa inuu meelo badan aado oo u gudbo ilaa dhinacyo badan ilaa hadda ay filnayn subxaanallah wax kasta ilaahay subxaana watacaala wuu awoodaa marka waxaa laga cabsanaya viruskaas intuu soo gaarin Somaliland leano shacabka Somaliland way daaleen waxay ka daaleen dadkan jeebabku waaweyn kuwan aman ay u keeneen laakiin way cunaayeen kuwaasna dagaal ay ku heeyeen wayna cunaayeen marka waxay rabaan heshiismo oo ka mid ah dakooyinka Somaliland inay ay qaadato tamliik yani beecu shira laakiin imaaraatiinta waxay iloosin yihiin in Somaliland ay galaynin heshiismada adduunka leano wali ma la ictiraafin dawlad ahaan soo hadeertan waxay ku ordaysaa waa dhibaato hadhow ay rabto in shacabka Somaliland isku dirto qoorta isku geliso markuu inta dagaalka istaaga inta la qarxiyo waa filan oo marna dhamaanin taas waa imaaraadka dawladda Masar waxay ku haminaysaa inay yeelato beeraha ku teesan webiga Shabeelle waxaa sacabsi ay ka qabtaa isbeddelka dhacaya war laga keenay Qaahirana waxa uu muujinayaa dhaqaalaha Masar in uusan u wanaagsaneyn in farmaajo uu ku soo baxo doorashada sida awgeedna xukunka askarta ee Masaaridu waxay ka codsanayaan imaaraadka in dhaqaale fiican ay ku bixiyaan sidii loo soo saari lahaa nin aan ahayn Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laakiin daarood si aysan u suuro gelin in Farmaajo mar kale uu noqdo mid kale waxa waay Masar waxa ogaanaysiin Soomaaliya 26 sano Soomaaliya dagaal ka socday Masar waa dawladda kaliya oo safaaradeedii ka dhaqaaqin safaaradda haday xirtaa ma aragtay dad gudi ka dawladda wasaaradda arrimaha dibadda ka mathalaya oo safiir ahaan u joogi jiray markastaba iyada iyo Liibiya dagaalada Soomaaliya ka dhaceen intaasoo hawiye daarood qashin wax kasta isku dhameeyeen ka qarash gelinayeen waxa qarash gelinayay yaa Masar yaa Qadaafi way isku dhameynayeen intaas dhan way joogtay maxay u joogtay intaas oo dhan yani caafimaadka Soomaaliya ma ka fikiraysa mise waxay dhahaysaa dadkan aan heshiisiin mise intaano dhan 26 sano hatta shacabka Soomaaliya way u joodaan inay dadkii hore joogeen Soomaaliya waqtigii dagaalada 4 bilood waxaas dhan way joogeen hadda gadaal isku noqotiin wax yar waxaad arkaysiin safaaradan kaliya ma dhaqaaqin maxay u dhaqaaq waasi mar ma lis weydiiyay sababta ay u joogto Masar adduunka dhan baxay dagaal oo ka dhacay qabiilada Soomaaliya oo adduunka dhan dhaqaaqay Masar iyo Liibiya inay meesha fadhiisto ee hub ay ku sii aruuriyaan wadankii dhalinyaradii wixii dhan oo mustaqbalka dhisi lahaay inay baabi'iyaan marka waxa Masar weligeedii iyada ma ka fikirin maslaxada Soomaalida laakiin waxa way caawintaa istiraatiiji ahaan siyaasad ahaan way iska caawinaysaa wax kasta ii diyaaraytaa caawinaad waan caawina qasa hadii qasiisa waan qasa waxa rabti waan la socdaa inta socotaa waa kula socdaa marka Masaarida waxa waaye 1993 waxa haysan jiray United Nations marka UNOSOM imaanaysa Soomaaliya waxa haysan jiray nin la dhahay Butrus Ghali waa ninka kaliya oo Carab oo qabsaday United Nations muddo hal jeer يعني 4 سنة انت او United Nations General Secretary u noqday kulligoodii min 8 sano haysteen asaga waa qofka kaliya 4 sano taasna waxay ahayd dhibaatooyinka iyo afku celista oo Mareykanku ku celiyay maslaxada Soomaaliya asoo ka fikiray markuu asaga aadina jaamacadda Carabta oo yiraahday Mareykan dadaal ay ka diluuleeyay waa noqonaya waxa United Nations kamid ah kulli inay noqdaan waay uu ka diiday wuxuu United Nations waa United Nations Mareykan waa Mareykan hadda idinka dadni laga dilay shacabka Soomaaliya mani baahna ee noqda uu diiday markuu diiday waxa qalbiga ka sii jibiyay jaamacadda Carabta markuu tagay oo madaxweyne Mubaarak uu yiri waxaad sameynaysaa ciidamada oo Carabta ah Sacuudiga Marookaanka Masaarida kulli ay joogan meeshaas inay ka dhaqaaqin Muqdisho ee ciidamada nabadgelyo isku bedelaan oo jaamacadda Carabta matalayaan say Soomaaliya ay ku toosto laana wadankan uu ni baahan yahay ay caawina markaas wuxuu ugu jawaabay wanta maalك يا عم كان بقيت اهلك من الصومال يعني adiga maxaa kaaga jooyiri ahalkaada ma asalkaada ma Soomaali ka timid ama dadkaada ma Soomaali ka yimid jawaabtaas ahayd oo Maxamed Xusni Mubaarak hadalkaas waxa qoray buugiisi Butrus Ghali intuu dhimanin buugiisu ku qoray taariikhda Butrus Ghali ee ka daawada meeshan marka Masar waxa waaye siyaasadeeda dhinaca Soomaaliya ma cad يعني سياسة أو دقن وايا أو كرسي هوس لقوضة ما نفهمسني لكن وحنا نوعدي كلي يعني شعب الصومالي عدو كتهاي وحو هاي سيد بطرس غالي نكاس أو هاي وزير كحجين كوزارة arrimaha dibadda waqtigii Maxamed Anwar Sadat
oo waddanka siistay. haddaan u noqono arrinta Soomaaliya waxaa waaye madaxweyne Farmaajo markuu qabsado waddanka dadku soo wata ka sii daran asaga afkaarta oo wata. sidoo kale wasiirkii waxbarashada Dr. Nuur oo reer Hiiraan ah ayaa lagu sheegay in dhawaanahani uu wada olole xoog leh laakiin lama sheegin cidda uu la siyaasad yahay. macnaha waxaa waaye nin oo waddankiisii maslaxada waddanka oo qaranka ka fikiraya waa ninka dhakhtarkan. so wuxuu rabaa inuu maslaxada shacabkiisii inuu hagaajiyo. so waa laga dheeray marka fursad weyn oo helaya hadduu Mr. Farmaajo qabsado waddanka oon alxamdulillah noo qabsaday igara lahada oo hadduu qabsado ma hadda waxay maraysaa hadda wuu joogaa yani hadda arrinta ma joogto sorry hadduu qabsado maya hadduu asaga hadda wuu haystaa taasna waxaa caddeey ninkan. ninka labaad oo soo saaranayna oo laga cabsanaya haddana nin wadani ah kuley Farmaajo buugis wuu buuxaa noocaas ilaahayna noo barakeeyo kuwaas camal. waxaa sidoo kale la sheegay musharax Jibriil oo ay ku qeexeen inuu yahay mudadarif cilmaani ah. waxaa ku soo helay Jibriil waxaa waa nin siyaasi ah oo wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ku heebadeeda u soo celinaya. ani kulli taasan u arkaya cilmaani mutatarrif ilaahay jinni ahaada ani kana rabaano kan aqligiis nadiifka asaan mujida aan rabaa maxaa dhacay mataqaana Farmaajo asagoo isfahmayaan kan laakiin dadkan kale ma isfahmi lahayn. so waxaan jeclaan lahay aad u jeclahay ninkaas Jibriil asagana inuu boos helo dawladda Farmaajo. marka waxaa waaye hadda kadib Soomaaliya maxamed meel alla meesha joogtiin inaa maslaxadiina ka fikirtiin waaye. runtii shacabka Soomaaliya wuu daalay waa dhibtoonay runtii dhibaatooyin badan aan naga soo gaartay taariikhdana way qori doontaa wax dhib anaka naga soo gaaray 26 sano inay buuga Soomaaliya ciyaalkeeni labaad inaan u sheegno waaye dhibka aan soo aragnay. so inaan qiimeyno waaye madaxweynaheeni aan daba joogno aan la istaagno meel alla meeshuu jooga oona ma aragtay garabkiisii aan markasta u joogno. waxaan ka cabsanayaa ilaahay mana tusiyo inay arrintii oo Mursi ma aragtay ku dhacday inay waddankeena ku dhici doonto haddii anaka ma aragtay aan hal gacan noqonin oo aan dhihin ma rabno musuq maasiq. waxaan igu waananayaa Soomaaliya meel alla ma joogtiin ciidamadeeni Soomaaliya inay ma aragtay xooggoodii iyo dhiiggoodii ay hordhigaan si maslaxada shacabka Soomaaliya ay u fulinto insha Allah. marka walaalayaal anoon igu dheeraanin waxaan rabay maanta inaan soo xasuusiyo generaalkii aan tookadii hore aan ka hadlaynay. waa ku mahadsan yahay waa noo soo xariiray barnaamijkeena la soo xariiray waa soo wacay wuu ku mahadsan yahay meel alla meeshuu joogo dhibku qabanayo xooggiisii iyo ma aragtay dhiigiisii siinay dadkiisii shacabkiisa Soomaaliya. waxaan ka rajaynaynaa madaxweynaha Farmaajo inuu ma aragtay ciidamada noocan ah noo badiyo biidnillaahi tacaala iyagoo badan laakiin aan ogeyn waqtigan meeshay ku nool yihiinba laakiin maasha Allah way badan yihiin. waxaan ka rajaynayaa madaxweyne Farmaajo inuu raggan ma aragtay in gooni loo fiiriyo oo la taageero si rag gadaashooda u soo saaraan oo noocooda ah ee raggeena noo bataan biidnillaahi tacaala. waxaan niga rajaynayaa khair waana ku mahadsan yahay generaalka intuu noo soo xariiray. waxaan rabay inaa haddeetaan barnaamijkeeni xalqadiisii tookadan waxaa waaye jaa'izada oo barnaamijka laga bixinayo su'aal ma laha barnaamijkaana tookadan mar labaad nagara lahaada laakiin tookadan waxaan rabnay jaa'izada oo isbuucan aan bixinayna ama bishan waxaan u direynaa ninkii dhahayay Farmaajo haliigay. marka Soomaaliya shanteeda geesba meel alla meeshii joogaan waxaan u rajaynayaa guul oo dhammaanaynin oo maalin waliba oo guusheena guul kale ku darsamaysa. madaxweynaha la garab qabto ilaahay ni garab qabanaya biidnillaahi tacaala. Soomaaliya noolaata. war degdeg ah 72 saacadood ee ugu dambeeyay waxaa dalka Soomaaliya ka dilaacay cudur cusub oo aan horey loo aqoon. dhakhaatiirta ku takhasusay baarista cudurrada faafa ee halista ah waxay ku tilmaameen in cudurkani yahay mid ku cusub geeska Afrika. magaciisa waxay ku sheegeen Farmaajo virus 2017.
wuxuu ku dhacaa dareenka wadani nacaybka wuxuu markiiba haleelayaa maskaxda shisheeye kalkaalka iyo kuwa aan waddanka biyihiisa lagu korin ee ku nool geeska afrika qofkii ugu horreeyey ee laga helo xanuunkaas wuxuu noqday generaal gabre saacadaha soo socda ayaa laga yaabaa in diyaarad khaas ah lagaga qaado magaalada muqdisho si loogu soo daweeyo dalka dariska ah ee Ethiopia ciidamada shisheeyaha ee jooga Soomaaliya ayaa lagu arkay calaamadihii farmaajo virus sidoo kale waxaa cabsi xoogan laga qabaa inuu ka dilaaco xarunta xalane iyo nawaaxigeeda calaamadaha ugu waaweyn ee lagu garto xanuunkan waxaa ka mid ah qabiil qaran nacayb gobolaysi shisheeye kalkaal hantiboob musuqmaasuq iyo dal nacayb waxaa maalintii shalay khamiistii bishii 9keedii 2017 la soo saaray tallaal ku meel gaar ah oo lagu magacaabo danta dalka diinta iyo dadka 4D waxaa la dhigay dhammaan farmasiyada ay leedahay shirkadda wadani ee laga leeyahay geeska afrika haddii aad isku aragto calaamadaha farmaajo virus fadlan degdeg u tag xarunta kuugu dhow ee wadani pharmacy si lagugu daweeyo ha ilaawin in aad iska tallaasho xanuunkan dilaaga ah ka hortagga ayaana ka wanaagsan daweynta ugu dambayn waxaan ilaahay ka baryayaa inuu geeska afrika ku anfaco dawada cusub ee ay dhakhaatiirtu soo saareen ee la yidhaahdo danta dalka diinta iyo dadka waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum